بسم الله الرحمن الرحيم سودو هذا مركل داوديا si aad ula socoto ona hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa waddanka Yemen halkaasi oo lagu soo waramayo dagaallo culus inay ka qarxeen kuwaasi oo u dhaxeeya xoogagga Xuutiyiinta iyo sidoo kale ciidamada dawladda caalamku aqoonsan yahay warbaahinta dawladda Yemen ayaa sheegaysa in ugu yaraan 5 dagaalamayaal oo ka tirsan Xuutiyiinta la dilay halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen kadib iska horimaadyo dib uga qarxay gobolka Tis ee koonfurta galbeed ee dalka Yemen warkan ka soo baxay ciidamada dawladda ayaa lagu sheegay in ay fashiliyeen isku day ay Xuutiyiintu ku doonayeen inay ku galaan jiidahan ee galbeedka magaalada Tis halkaasi oo la sheegay in 5 dagaalame oo ka tirsan Xuutiyiinta lagu dilay dawladda ayaa sidoo kale ku andacootay in madaafiic lagu garaacay fariisimada Xuutiyiinta ay ku leeyihiin xerada Cali Naasir iyo sidoo kale Tabaad Sariih ee degmada Khadir ee koonfurta galbeed ee gobolka Tis dhanka kale warbaahinta ciidamada iska caabinta qaranka ayaa waxay sheegtay in dagaal socday muddo 2 saacadood ah oo ka dhacay jiida al-Barah ee xeebta galbeed iyadoo labada dhinac iswadaarsadeen rasaas culus dawladda ma shaacin qasaaraha guud ee halkaasi ka dhacay Xuutiyiinta ayaa iyagu wali si rasmi ah uga hadlin sheegashada dawladda ee ku aadan qasaaraha iyo dagaalada maanta ka dhacay Tis warbaahinta al-Masiira iyo afayeenka militariga Xuutiyiinta General Yahya Sariic ma aysan soo saarin bayaan la xiriira iska horimaadidan ilaa iyo waqtigan warbixinta aynu baahinayno maalmihii ugu dambeeyay Xuutiyiintu waxay diiradda saarayeen bayaano la xiriira xiisadaha gobolka iyo hawlgallada dhanka badda iyagoo ku celceliyay in tillaabooyinkooda ay yihiin kuwa difaac oo looga jawaabayo wax ay ku tilmaameen gardarro kanana Yemen iyo xulafadeeda magaalada Tis iyo dagaaladan ka dhacay ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli ay sii kordhayaan iska horimaadada jiidaha hore ee Yemen iyadoo xaaladda amni ee gobolkana weli ay tahay mid kacsan isla markaasna aan la helin xaqiijin madax bannaan oo ku saabsan qasaaraha ay labada dhinac kala sheeganayaan wahagaag wararkaasna inta aynu kaga gudubno markan waxaynu eegaynaa war kale oo isla arrimahan u dhow Israa'iil waxa la leeyahay waxay walaac weyn ka qabtaa ishana ay ku haysaa dhaqdhaqaaq ay bilaabeen ciidamada militariga gaar ahaan kuwa badda ee waddanka Yemen raali ahaada waddanka Masar haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee amuurahani hay'adaha amniga iyo sirdoonka Israa'iil ayaa si dhow ula socda dhaqdhaqaaqyo lagu sheegay in ciidamada badda Masar ay ku xoojinayaan joogitaankooda koonfurta badda cas gaar ahaan agagaarka marin biyoodka Bab al-Mandab iyadoo xiisadaha gobolku ay sii kordhayaan isla markaasna ay walaac ka taagan yihiin amniga maraakiibta iyo marinada shidaalka uu ka gudbo warbixintan oo daabacay bogga wararka ee Enzif ee xogaha sirdoonka ilaha furan ee Israa'iil laga leeyahay ayaa waxa uu sheegay in Masar ay kordhinayso awoodeeda badda ee gobolka si kastaba ha ahaatee warbixintu ma aysan soo bandhigin sawirro tiro rasmi ah oo maraakiibta ama caddayn madax bannaan oo xaqiijinaysa baaxadda dhaqdhaqaaqyada la sheegayo sida warbixintu sheegtay kormeerka Israa'iil ayaa si gaar ah diiradda u saaraya saldhigga ciidamada badda ee Baranis ee ku yaal xeebta badda cas kaas oo suurtagelinaya Masar inay gaarto koonfurta badda cas iyo Bab al-Mandab waxaana la sheegay in Masar ay adeegsan karto maraakiib dagaal oo kala duwan oo qaarkood gantaallo ay ku rikaban yihiin shabakadda Enzim ayaa ku xiriirisay dhaqdhaqaaqyadaasi danaha dhaqaale iyo amni ee Masar gaar ahaan ilaalinta marinka Suez iyo dib u soo celinta kalsoonida shirkadaha maraakiibta ee hoos u dhigay isticmaalka badda cas kadib weerarada iyo hawlgallada ay fuliyeen
dhaqdhaqaaqa ansaarullah ee loo yaqaan xuutiyiinta Yaman. Warbixinta waxay sidoo kale sheegtay in tilaabadan ay ku soo beegmayso kadib markii Sacuudigu ay ku dhawaaqeen hindise lagu dhisayo isbahaysi ciidan oo badeeda oo lagu ilaalinayo xorriyadda maraakiibta gooshaysa badda cas, baabalmadab iyo gacanka cadmeed, iyadoo Masarna ay sheegtay inay ka mid tahay wadamada taageeraya qorshahaasi. Masar weli war kama soo saarin warbixintan ay daabacday shabakadda wararka arrimaha sirdoonka ee NZIF ama sheegashadan ku saabsan xoojinta ciidamada badda. Sidoo kale Israa'iil ma soo saarin caddaymo rasmi ah oo taageeraya qiimaynta lagu daabacay shabakadaasi. tahay warkaas inta aynu kaga gudubno waxaan u gudbaynaa xaaladda bariga dhexe oo caawa ka duwan xaaladdu sida ay ahayd xilligan oo kale xalay, laakiin wax kasta way isbedeli karaan. wadahadallo ayaa socda ayaa la sheegayaa. Maraykanka waxaa la leeyahay aqalka cad wuxuu ku jahawareersan yahay xaaladda Iiraan ka jirta, sidee loola macaamilayaa. Israa'iilna waxayba la yaaban tahay sidii degdega ahayd ee Trump uu ku joojiyey duulaan ay qorsheeyeen, oo waxayba leeyihiinba internetka ayaynu ku aragnay oo cid xitaa nala tashatay ma jirto. wararkaas iyo sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka hagaag. xaaladda bariga dhexe waxay ka duwan tahay 24 saac sidii ay ahayd, laakiin weli xiisadu way taagan tahay. waxaana lagu soo warramayaa inay socdaan dhaqdhaqaaqyo ballaaran oo dhanka diblomaasiyadda ah. waxaynu ku hormaraynaa Iiraan iyo wararka ugu dambeeya ee ka soo yeeraya. haddaba waxaa soo baxay war weyn oo dhanka Iiraan ka soo baxay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan Ismaaciil Bakhaa'i ayaa daboolka ka qaaday inay socdaan wadahadallo u dhexeeya Iiraan iyo Cumaan, kuwaasi oo ku saabsan marin cusub oo maraakiibtu ay ka gudbaan oo laga samaynayo marinka Hormuus, isagoo hoosta ka xariiqay in marinkaasi aanu ahayn jidka waqooyi ama jidka koonfureed. sidan waxaa baahisay warbaahinta Iiraan. waraysi uu siiyey warbaahinta SNN ee Iiraan laga leeyahay, Bakhaa'i waxa uu sheegay in Maraykanka uusan ogolaan in maraakiibtu ay dib ugu soo laabtaan marinka muddadii lagu heshiiyey ee heshiiska is-afgaradka, isla markaasna uu bilaabay inuu Iiraan weeraro xitaa iyadoo aysan dhammaan muddadii lagu heshiiyey. Ismaaciil Bakhaa'i oo hadalkiisa sii ambaqaadaya wuxuu yidhi furitaanka marinka Hormuus waa arrin ka duwan wadahadaladii horay, laakiin kuwa aynu la leenahay Cumaan waa kuwa ku aadan xiritaanka marinka oo xadgudubida Maraykanka uu ballanqaadida ku sameeyey kuwa ka duwan. war kale oo coladan la xiriira Ismaaciil Bakhaa'i waxa kale oo uu sheegay in 24 saac ee la soo dhaafay Iiraan ay heshay fariimo uga yimid Ingiriiska, Bulgaria iyo Ukraine, kuwaasi oo sheegay buu yiri inaysan diyaar u ahayn inay ka qayb galaan dagaalka dhan ah Iiraan. war hadda soo dhacay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan Abbas Araghchi ayaa farta ku fiiqay in wadahadallada u dhaxeeya Iiraan iyo Cumaan ay marayaan heerkii ugu dambeeyay. qoraal uu ku baahiyey Telegramka, Araghchi waxa ku nuuxnuuxsaday in warbixin uu u gudbiyey golaha wasiirada uu ku tilmaamay wadahadallada Iiraan iyo Cumaan inay yihiin kuwa ku socda gabagabo. Iiraan iyo Cumaan ayaa ka wada hadlaya maamulka mustaqbalka ee marinka Hormuus, iyadoo Maraykankuna wax door ah arrintaasi uusan ku lahayn. waaye Iiraan marka arrintaas hadda socota caawa, Trump iyo aqalka cad waxa la leeyahay jahawareer baa ka jira xaaladdan sidii loo maareyn lahaa. aynu eegno war ay daabacday mid ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer dalka Maraykanka. majaalada Politico ayaa waxay ka soo xigatay sarkaal ka tirsan aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Maraykanka iyo maamulka madaxweyne Trump oo sheegaya in Maraykanku uu wajahayo jahawareer iyo fursado ku saabsan Iiraan. sida ay saraakiishu sheegeen, kooxda Trump waxay aaminsan yihiin inaan xal ku habboon oo lagu xallin karo xiisada la gaari karin ka hor doorashooyinka bisha November waddanka Maraykanka ka dhici doona. waxaana muuqanaysa in Maraykanku aysan ogeyn sida xaaladan ay ku soo gabagabayn karaan. Israa'iil dhankeeda, hay-adda warbaahinta Israa'iil ayaa waxay ka soo xigatay saraakiil sheegaya inay adag tahay in si dhab ah wax loo qorsheeyo mustaqbalka, iyadoo la eegayo habka madaxweyne Trump uu u maamulayo arrimahan.
saraakiishu waxay sheegeen in inta badan wadahadallada hadda ku saabsan arrimaha Iiraan ay yihiin kuwa quseeya marinka Hormuus isla markaasna aan la ogeyn halka ay ku dambayn doonaan arrimaha kale. waxay sidoo kale sheegeen saraakiishan inay jiraan su'aalo ku saabsan kaydka uraniumka ee Iiraan iyo ballanqaadkii maamulka Trump ee ku saabsanaa habdhaqanka Iiraan. telefishinka kanaal 12 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa waxa isna uu ka soo xigtay ila Israa'iiliin ah oo sheegaya in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo xubnaha golihiisa wasiirada ay go'aanka lagu baajiyay weerarkii lagu qaadi lahaa Iiraan ku ogaadeen qoraal Trump uu ku baahiyay baraha bulshada. iluhu waxay sheegeen in saacado badan Israa'iil ay ku jirtay hubanti la'aan isla markaasna Trump uu geliyay madaxda Israa'iil xaalad aan la saadaalin karin. waxaan dareennay in kaligeena la ka reebay wadahadallada ayay yiraahdeen ilo wareejada Israa'iil, taasi oo ka bacna in Israa'iil aan la socodsiin waa sida dalka loo dhigay go'aamada Mareykanku uu gaaray. Mareykanku marka go'aanka markuu gaaray Trump waxa la yiraahdaa wuxuu ku qoray baraha bulshada. Israa'iil maxay sugaysaa marka la tashi in la weyneeyo iyo arrinta sidee ka yaalla. Trump isagoo cidna u sheegin ayuu fariin ku soo qoray. Israa'iiliintii isdiyaarinayay oo lahaa Iiraan ba weerar soo qaadi doonta adinkuna ka qayb qaata weerarka gantaaladii rakabatay diyaaradihii diyaarsaday fariintan ay arkeen way ku weerareen. waxay leeyihiin marka mustaqbalka sida howlgaladan loo maareyn karo baba garanaynaba. macnaheedu waxa weeye Trump wax kasta laga filan karaa. waaye war kale oo Israa'iil la xiriira ayaa soo baxay. mid ka mid ah shirkadaha waddanka Mareykanka laga leeyahay ee diyaaradaha ayaa waxa la sheegayaa in aysan imaan doonin Israa'iil ilaa iyo sanadka soo socda. shirkadda American Airlines ayaa waxay ku dhawaaqday inaysan dib u bilaabi doonin duulimaadyada ay ku tagi jirtay Israa'iil ka hor 27 bisha Maaj sanadka 2027 sida caawa uu baahiyay telefishinka kanaal 12 ee Israa'iil laga leeyahay. isku dayay lagu sameeyay bogga shirkadda gaar ahaan in tigid laga goosto ayaa waxay muujiyeen in duulimaadyada tooska ay bilaaban karaan oo kaliya laga bilaabo 28 bisha Maaj 2027. sida xaaladdu hadda ay tahay shirkadda United Airlines ayaa waxay qorsheynaysaa inay dib u bilowdo duulimaadyada Israa'iil 7 Sebtembar ee sanadkan, halka shirkadda diyaaradaha ee Delta Airlines aysan qorsheynin in ay dib u soo bilowdo duulimaadyadeeda ilaa iyo 5 Sebtembar 2026. wararka dhanka diblomaasiyadda ee xiisadahan colaadeed ee gobolka Bariga Dhexe haddii aynu jaleecno, wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Sacuudiga ayaa waxay caawa baahisay war ku saabsan in wasiirka amuuraha dibadda ee dalka Sacuudiga Faisal bin Farhan Al Saud uu qadka telefoonka kula hadlay dhigiisa Iiraan Abbas Araghchi. labada wasiir ayaa waxay ka wada hadleen dadaalada dhanka diblomaasiyadda ee lagu dejinayo xiisada gobolka ka aloosan. waa tahay warkaasna intaa aynu kaga gudubno. imika waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay. alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen. sheekadan waxay ku saabsan tahay nin hadda ka hor waa 10 sano ka hor qiyaamo sameeyey laakiin hadda ka shalaynaya. ninkan shirkad ayuu wuxuu u geliyay imtixaan kadibna nin kale ayuu la tashaday. su'aalihii shaqada uu ku heli lahaa ayaa aad ugu adkaaday. ninkii kale ayuu la tashaday. markuu la tashaday ninkiiba u fududeeyey su'aalihii. laakiin 10 sano kadib ninkii waa soo laba kacaleeyay oo wuxuu leeyahay lacag ayaan kaa doonayaa, haddii kale shirkadda aad u shaqayso ayaan waxaan u sheegayaa imtixaankii shaqada aad ku gashay inuu ahaa mid aad qashtay oo khiyaano ah. waa sheeko la yaab leh. haddaba aynu eegna sheekadan oo qabsatay warbaahinta waddanka Hindiya iyo baraha bulshada. hagaag sheekadan ayaa waxaa la sheegayaa inay la xiriirto ninkan oo imika lagu hayo handadaad. sababtuna maxay tahay qalad uu sameeyey 10 sano ka hor intii uu markaasi isku dayay inuu shaqo helo. ninkan ayaa waxa uu sheegay in xilligaasi uu adeegsaday adeeg internet oo qof kale uu ugu qoray warqad ama shaqo koorso oo taariikhdaasi la gelayay. sida uu sheegay
qof la rumaysan yahay inuu xiriir la leeyahay adeegaasi ayaa hadda ninkaasi dib ula soo xiriiray isagoo ka dalbanaya lacag kuna hanjabaya in arrinta ay gaari doonto shirkadda uu shaqeeya haddii lacagtaasi uusan bixin qofkan shaqaalaha oo magaciisa aan la carabaabin ayaa waxaa la sheegayaa in markaa uu ka mid yahay shaqaalaha ilaa iyo 100,000 oo qof oo ka shaqaynaya shirkadaasi oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn laakiin eedayntu waa mid weyn oo wax yeelaysa sumcadiisa iyo xitaa mustaqbalkiisa shaqada sheekada ayaa markii dambe waxaa lagu baahiyay baraha bulshada waxayna dhalisay dood aad u ballaaran dad badan ayaa kula taliyay inuusan u hoggaansamin dalabka lacagta balse uu ururiyo cadeymaha hanjabaadda isla markaasna u gudbiyo booliiska ilaa hadda ma jiro war sheegaya in dacwad rasmi ah laga gudbiyay qofkii kale ee kiiskan ku lugta leh ee ninkan lacagta ka dalbanaya ninkan marka wuxuu leeyahay imtixaanka shaqada aad ku heshay iyo xitaa kii waxbarashadaada oo shahaadadan aad ku sheegatay inaad aqoonteeda leedahay labadaba been abuur weeye marka shirkaddan u gudbinaya ninkan marka waxay leeyahay haddii xitaa shirkaddu ay dayso wuxuu noqonayaa nin shaqaalaha la shaqeeya iyo madaxda shirkaddu ay fahamsan yihiin inuu yahay nin khiyaano booskan ku helay iyo shaqadanna ku helay inkastoo laakiin arrintu ay ahayd arrin 10 sano ka hor dhacday marka tusaalaha ugu wanaagsan wuxuu yahay qofka inuu mar walba ku kalsoonaado naftiisa khiyaaraduna ma fiicna hadda mar kastaba hadda ninkan 10 sano kadib ayaa arrintii imika dhibaato culus ay ka haysataa marka waa ka fiirso intaada falin halkii Soomaalidu ka tiri waa hagaag sheekadaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkii inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka caawa ana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir aynu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh